Xaafuun iyo magaalooyinka kale ee dhaca xiga xeebaha bariga fog ee Puntland waa dhul ay adag tahay tegistiisa marka laga hadlayo masaafada loo soconayo iyo dhulka lagu safrayo oo isugu jira bacaad, buuro iyo dalcado adag. Ciidanka BSF ayaa xuraan ku helay in deegaanada tirsan xeebaha ay dhaqdhaqaaq ka wadaan kooxaha sharwadayaasha. Ciidanka BSF ayaa intay safarka ku jiraan waxay qabteen 4 sharwade oo ay Daacish u soo dirsatay inay agab ciidan uga soo qaadaan inta u dhaxaysa Tuulo Ciise iyo deegaanka Timirshe. Laanta xogdoonka ciidanka BSF ayaa inta ciidanka oo safar ku jira waxay la soo wadaagtay in rag ka tirsan Daacish ay ku sugan yihiin toga Maroodi Magaale oo waxay u jira deegaanka Timirshe. Ciidanka oo halkaas ku baxaya ku guuleystay inay soo qabtaan 3 sharwade oo ka tirsan raggii xogtooda la helay. Xubnahan oo guud ahaan ka kooban 7 xubnood una dhashay dalka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada ayaa baaris kadib qirtay inay ka mid yihiin kooxaha sharwadayaasha ee Daacish, waxayna doonayeen in ay shixnada u qaadaan buuraleyda caalamiska ee gobolka Bari oo ka mid ah goobaha ay gabaadka ka dhigtaan kooxahan. 7 xubnood ayaa magacyadooda waxay kala yihiin Kabana Nagaza Buljameta, Abdallah Tadase Gafaso, Qasim Suleyman Jibril Nikasa, Yusuf Tuna Dube, Yasin Abdu Awal, Anwar Fadhi Abagato, Isaaq Kamal Qasim. Intaas kadib ciidanka BSF waxay gaareen toga jecel ay ku dhuumaaleysan nabadiidka taagta daran ee Daacish iyo deegaanada Hulacaanood, Caris iyo degmada Xaafuun, iyagoo ciidanku halkaasi ka sameeyay howlgal isugu jiray bad iyo biri. waxaana howlgalkani ahaa mid lagu baacsanaya haraadiga kooxaha taagta daran ee ku baratama daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah.